golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya iyo tan gobolka intaba. waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlayo waxaa ka mid ah xaaladda Soomaaliya, dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab, ammaanka waxa iska bedelay iyo guud ahaanba dhan kasta marka la eego. sida ay si lamid ah waxa lagu falanqeyn doonaa kulanka xaaladda gobolka Geeska, heshiiskii Somaliland ay la gashay Ethiopia iyo sidoo kale arrimaha gobolka oo hadda laga deerinayo in xiisad gacan ka hadal ay isku bedesho. shirka oo mid xasaasi ah waxa ka qayb gali doona wakiilka ku-meel gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan, ergeyga gaarka ee Midowga Afrika Maxamed Al-Amin Suuf, iyo sidoo kale madaxa ATMIS, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. shirka ayaa noqon doona mid indhaha lagu wada hayo maadaama looga hadlayo laba ajando oo aad u waaweyn oo kala ah xaaladda Soomaaliya, isbedelka iyo sidoo kale dagaalka lagu jiro Al-Shabaab iyo dhinaca kale xaaladda gobolka Geeska. xogayaha qaramada midoobay James Swan ayaa waxa uu hadal ama khudbad dheer ka jeedin doona golaha ammaanka hortooda, isagoo halkaas ka sheegi doona isbedbedelada siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda Soomaaliya guud ahaanba. dagaalka Al-Shabaab dawladda ay kula jirto dhaqaalaha iyo dhan kasta oo horumar laga sameeyay dib u dhacintaba. sida ay si lamid ah waxa uu hadalkiisa ama qayb ka noqon doona xaaladda gobolka Geeska, heshiiskii Ethiopia iyo Somaliland ay wada galeen iyo arrimaha quseeya Soomaaliya marka la eego. golaha marka uu dhageysto soo jeedinada iyo hadallada madaxda halkaas ka qayb galaysa, ugu dambeyn waxa uu soo saari doona war cad oo kama dambeyn marka la eego. indhaha ayaa lagu wada hayaa waxa ka soo bixi doona shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo la wada sugayay. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo qayb ka ah mas'uuliyiinta halka ka qayb galaya ayaa la filayaa in xogaha iyo sidoo kale xaaladda Soomaaliya isna uu warbixin ka siiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. damaca Ethiopia oo wali aan quusan iyo abiyo darbiyada madaxa la dhacaya ayaa waxa uu hadda taagaya quustii ugu dambeysay. Somaliland waxa ay muujinaysaa wali in ay ka niyad jabsan tahay ama ay ka shalaynayso heshiiskii ay la gashay dawladda dalka Ethiopia. hadda gudaheeda waxa ka jira dagaal jabhada ay ku soo qaadeen. dhinacyada kale waxa kaga furan dagaal oo Soomaaliya qayb ay ka tahay. Eritrea iyo sidoo kale Masar oo iyadu doonayso meel ay u soo marto kadib heshiiskii difaaca ay la gashay Soomaaliya. shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isagu waxa uu niyad jab kale ku sii noqon doona dawladda dalka Ethiopia marka la eego oo aan jeclaysan doonin go'aamada ka soo baxaya. madaxda caalamka dhowr jeer oo hore Ethiopia waxay kaga digtay in ay faragelinta Soomaaliya ay ku hayso ay joojiso oo haddii bad ay doonayso wada hadal dawladda Soomaaliya ay kala gasho. Ethiopia oo doonaysa in mar ay gacanta ku dhigto bad ayaa iyadu wali ka laaban heshiiskii dawladda ay ku sheegtay inay ka laabato markaas wada hadal la gali karo. balse Ethiopia ayaa iyadu wali waxay taagan tahay heshiiska intaanan ka noqon waxaan rabaa inaan helo wax la igu bedelo, taas oo dawladda Soomaaliya ay diiday. horay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shirka golaha ammaanka qaramada midoobay qayb ka ah oo ka qayb galaya ayaa waxa uu sheegay hadal dad badan soo jiitay oo ahaa Ethiopia waxay wadaa ku qabso ku qadimaysid. aragtidaada nala wadaag, maxaad is leedahay way ka soo bixi kartaa shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo looga hadli doono xaaladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan gobolka Geeska.